taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cismaan Kaniif oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo ujeedka socdaalku yahay howlo shaqo oo la xiriira arrimaha booliiska. taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cismaan Kaniif oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada socdaalka isagoo sheegay inay u yimaadeen howlo shaqo oo la xiriira dardargelinta howlaha shaqo ciidanka booliiska iyo arrimo kale kuwaas oo xusay in marka ay soo dhamaadaan ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxaan soo gaarnay maantay aniga iyo saraakiil ka tirsan booliiska oo la socda magaalada Gaalkacyo maamul goboleedka dowladda Galmudug. waxaan u nimid arrimo shaqo oo ku saabsan arrimaha amniga iyo dardargelinta booliiska inaan maaragtay ka shaqeyno sidaas aan u nimid insha Allah wixii ka dambeeyana gadaal baan ka sheegi doonaa faahfaahinta. imaashaha taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska Soomaaliya iyo wafdigan uu hogaaminaya ayaa ku soo beegmaysa xilli Gaalkacyo ay ka soconayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dil habeenna ka hor magaalada Gaalkacyo loogu geystay samafale Sheekh Cali Axmed Faarax oo ahaa nin ka shaqeeya arrimaha aqoonta kaas oo si gardarro loogu dilay duleedka magaalada Gaalkacyo iyadoona imaashaha saraakiisha booliisku ay qayb ka tahay baaritaano lagu sameeyo arrintaasi. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.